muraayadaynu xidhanay aad u qallafsan muraayadaha qallafsani waxay suurto gelin kari waayeen inay noloshii xaqiiqada ahayd aragno taasa waxay keentay markaasi in taaqaadkeen iyo awoodeen iyo dhama ay catilanto oo waxba aynu garan kari weyno taasa waxay keentay in maalinimo maalin inoo dhiibto shaqo walo aynu qaban karnaba aynu isla berri sanadka dambe markaad soo firaaqowdo bal hadhow baad waqti u dayday doontaa noloshana mar la firaaqoobaaba ma jiro waxaan rabaa markaasi maanta cilmi idinku kordhin maayo laakiin silsiladan idinka jibinaya yani waxaan rumaysnay in silsilada inagu xidhan yihiin awoodii iyo taaqadii alla ina siiyey subxaana wa tacaala in silsilada inagu xidhan yihiin waayo shayga nolosha ay u baahan tahay maalmaha ka mid ah waxaan galay netka dabeetana waxaan galay labadan website ee xufaadul waxyeynka laba website oo quraanka iyo xadiista lagu qaybo kadib waxaan arkoon iclaan yaro meel ka laalaada oo sheegaya ma rabtaa quraanka inaad 30 maalmood ku qaybto markaasaan sidii waa qariib war mala 30 maalmood quraanka ay taqaanay 30 mala laguma qaybo 30kii maalmood meesha ku qorayd baan galay والرسالة أما كتاب نقرأ لحدن يسدح بيج لحدن يسدح ذا بيج رنتي هداد أخردان ورشادة وحبدا بيسك بدلية وحاو حسابية وتلمامية وليه وحكستو نولش هدف كستو إنو باهنين إنو حقيقنا لبشا يقولوا باهن يبولي مدي والهمة والعزيمة والمثابرة مدي وهنصر وقوان أدق وطه hanku waa qofku inuu han weynaado hadaad han yar tahay waxa weeyaan waa cigaal shidaadkii la lahaa maxay col hortii jabayay col hortii baad jabaysaa hadaad han yar tahay macnaheedu waxa weeyaan adaa waxba isku dayin ayaa jabaysaa laakiin qofku markuu han weyn yahay oo uu aziimana leeyahay go'aan adagna uu leeyahay kaasi waa qodobka koowaad ee nolosha wax ka bedeli kara qodobka labaad ee nolosha wax ka bedeli kara waa al-maqdira awood iyo istitaaca inay jirto awoodina way ka buuxdaay waa lagu tusi waayay Soomaalidu waxay dhaahdaan geelaba aakhira xoogiisa la tusaabay yiraahdeen adduunka ilmo yar baa neefka geele weyn hogaamiya marka aakhirun bu xoogiisa arkaabay yiraahdaan waxaan ka baqayaa inteena badani inaynu ku dhacno aakhira inaynu aragno awoodiyo nimcada iyo xoogga Alle ina siiyay subxaanahu wa ta'ala in adduunka arkari weyni كصدحاتنا وحكوت الماما يعني تهي إن له الصحبة الصالحة المشجعة إن له الضد